Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta ku xidhan kanaalkeena barashada shaybaarka soo dhowaada. Waxaa inoo socda casharaanta xanaa oo la taxalluqa yuuriinta qaybtii weliba chemical examinationka oo aynu maanta qaadanayna casharkii saddexaad oo ah protein of urine proteinka laga baadho yuuriinta. Waxaynu isweydiinaynaa afar qodob oo ugu muhiimsan. Maxaynu proteinka yuuriinta uga baadhnaa ama proteinka yuuriinta laga baadho maxay muhiimadiisu tahay? Normalka intee leeg ayaa looga baahan yahay proteinka ku jira yuuriinta? Maxaa kor u qaada ama waxyaabaha kor u kordhiya ama hay ka dhiga proteinka inuu kaadida ku badato, iyo waxyaabaha lagaga hortago ama si aynu hoos ugu dhigno maxaynu u baahannahay si proteinka kaadida ku jira loo yareeyo. Afartaa qodob ayaynu isweydiinaynaa. Fadlan subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta nala moogaanina dhiirigelin ayay noo tahay. Waad mahadsantihiin. Haddii aan soo qaadano qodobka koowaad waa urine analysis. Maxaynu yuuriinta uga baadhnaa proteinka? Yuuriinta proteinka waxaa looga baadhaa horta waa tas ka mid ah shaybaadhada laga baadho yuuriinta ama oo ka jira chemical examinationka. Proteinka waxyaabaha ugu muhiimsan aynu uga baahanay inaynu ka baadhno waxa weeye inaynu xaaladda caafimaad ee kelida ku ogaano. Mararka qaar kelidu ay xaaladdeeda caafimaad ayna fiicnayn waxay sameysaa maadaama oo kelidu ay filtrationka u qaabilsan tahay jirka, oo marka qofku uu cuno waxyaabo protein ku jiro kaliyaha ayaa ku sameeya filtration. Wixii fitamiinada ee jirku u baahan yahay isaga ayaa dib ugu celiya jirka. Wixii wasdiya ama aan loo baahnayn isaga ayaa dib ugu wuxuu u saaraa urinary tract ayuu mariyaayo kaada hees ayaa laga saaraa. Sidaa awgeed haddii kelida xanuun ka jiro ama kelida ay dhaawac soo gaadho oo ay sifayn kari weydo oo proteinka ay ka saari kari weydo kaadida ayaa la soo raaciyaa. Markaas waxaa ka mid ah in kelida caafimaad qabta iyo in kale in la ogaado ayaa ka mid ah in yuuriinta laga baadho proteinka. Qodobka labaad oo ah yuuriin intee leeg protein ayaa yuuriinta ku dhex jiri kara. Caadiyan mararka qaar waa nil ama waxba lagama helo protein kaadida oo waa negative ku ka yahay. Haddiiba ay wax soo raacaan oo xataa wax laga helo waxa la yiraahdaa wax yar oo 150 gram per liter ayaa laga helaa. Waxa kale oo jirta caadi ahaan proteinka yuuriinta kuma jiro ama lagama helo waa negative. Su'aasheena saddexaad oo ah maxaa kor u qaada in proteinka yuuriinta laga helo? Kow sidaan hore u soo sheegnay waxaa ka mid ah kidney problem ama kidney disease ama waxa loo yaqaan glomerular oo ah in kelidii caabuq ama xanuun ka jiro ayaa number 1 ka. oo kelida hore waxaynu soo sheegnay filtrationka maadaama ay qaabilsan tahay in haddii filtration ay sameyn kari weydo oo proteinka ay ka saari kari weydo oo maadaama ay xanuunsanayso ayna awood u lahayn in nephroniska yaryara ee filtrationka sameynayay dhaawac soo gaaro ama xanuun uu ku dhaco, taas oo sababta in qofku uu filtration uu kelidiisu sameyn kari weydo in protein badan yuuriinta la soo raaciyo. Waxa kale oo ka mid ah glucose-ka ama sonkorta. Waxa kale oo ka mid ah waxa la yiraahdo blood pressure-ka. Waxa ka mid ah cuntooyinka proteinku uu ku fara badan yahay. Dhammaan kuwaas oo dhan waxay kor u qaadaan ama ay qofka ay ku sameeyaan in proteinka jirkiisa uu farabato. Waxa kale oo ka mid ah qodobka inuu ugu dambeeyo oo afraad wuxuu noqonayaa waxyaabaha hoos u dhiga proteinka. Hadduu qofku tusaale ahaan qofka lagu sheegay inuu protein dhakhtarka markii uu la taxalluqay in proteinka jirkiisa ku badan yahay, muxuu u baahan yahay haddaba si proteinka jirkiisa ku jira loo saaro ama hoos loogu dhigo ama qofku proteinkiisa hoos kaga yareeyo? Kow horta cuntooyinka proteinka ku badan yahay oo dhan inuu the food rich proteinka inuu iska yareeyo. Kow inuu monitor gareeyo macaankiisa oo kale, waayo macaanku waxaan ognahay in waxyaabo ugu horeeya uu saameeyo kaliyaha iyo ka mid tahay iyo wadnaha. Saas oo kale ay tahay waxaanu samayn karnaa beerka sokorta waxaanu samayn karnaa waynu qofku sonkor protein badan aan loogu soo deynin dhiiggiisa. Waa inuu sonkortiisa control. Sidoo kale blood pressure-ka ka mid ah qofku inuu control cuntooyinka fitamiinku ku badan yahay, sidoo kale inuu iyagana control. Sidoo kale inuu exercise fiican oo kale uu sameeyo.
iyo kuwa monitoringka markaas kuwaasina waxay qofka ka saacidayaan in borotiinka uu jirkiisa qofkii uu ku yaraado marka inahaas ayaa ugu muhiimsan borotiinku guud ahaan waa tas laga baaro yuuriinta oo ka mid ah kuwa ku jira chemicalka waana wax lagu ogaado xaaladda caafimaad ee kelida sida guud maanta insha Allah kosabka guud ayaan doonaynaa inaan ka bixino oo casharaanta aynu saa gaagaaban u soo bixino maadaama ardayda nagu xidhan dhammaantood ay yihiin arday akademiga oo wax baratay oo kaliya u baahan xoogay in loo kala saaro shaygan waxyaabaha uu qabto iyo waxyaabaha kor u qaadiyo waxyaabaha hoos u dhiga sidoo kale maadaama inagu aynu laabnahay laabka muhiimadiisu waxa weeye maxaa qofkan borotiinkiisa badiyay iyo maxaa yareeyay kaliya caafimaad ahaan maadaama inahay inaynu iska ogaano way fiican tahay laakiin inaga qofkan borotiinkiisa miyuu sareeyaa mise wuu hooseeyaa ayaa muhiima oo waxa dhici karta dad qof baadho oo borotiinkiisa uu sareeyo waxaad u baahan tahay inaad weydiiso ma wax borotiinku ku badan yahay baad cuntay ma macaan baad leedahay ma waxyaabo kala jira marka insha Allah casharaanta waynu soo gaagaamin doonaa haddii alla awoodda la ogolaado waxaan intaan casharka la mida ku kulmayna idinka tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu